waxaan ahay qof wax aad u xiiseeya wixii ayaan bilaabayaa kadibna dhexda ayaan kaga istaagayaa waan ka caajisayaa haddaba su'aashu waxay tahay maxay tahay daawada xiiseynta aan joogtada lahayn أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. السلام عليكم وادكم حسن تاي داوشدا muuqaalkan ku soo dhawow hal shay oo aan si dhab ah u ogahay magacay waa Yuusuf Sakeen su'aashan ayaa soo gaartay waxayna tahay waxaan ahay qof aad wax u xiiseeya kadibna markiiba ka xiisa dhaca haddaba aan ku weydiiyo adiga su'aashan ma tahay qof sidaas ah qof waxaad aad u xiiseynaysaa buug ina akhrisid ayaad xiiseynaysaa qof ina baratid ayaad xiiseynaysaa iskuul ayaad xiiseynaysaa waxay noqotaba waxaad xiiseynaysaa wixii ayaad bilaabaysaa balse nasiib daro ma si wadaysid wixii dhaxda ayaad uga istaagaysaa dhaxda ayaad uga tagaysaa haddaba haddii aad tahay qofkaas iyo ogolow maanta inaan kula wadaago daawadaada daawada wax xiiseynta aan joogtada lahayn runtii arintan waa arin ku dhacda dadka oo dhan anaga oo dhan bani aadan ahaan waxaynu xiiseynaynaa kadibna waynu ka xiisa dhacaynaa midaas waa dabeecad Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu abuuray balse waxa jirta qaabab aynu uga hortagi karno inaynu wixii aynu bilowno dhaxda uga tagno inaynaan noqonin dad kaliya wax iska xiiseeya oo aynu noqono dad wax ka dhaweeya dad wax fuliya wixii ay bilaabeen fuliya oo na dhameeya waayo firi arintu ma ahan inaad wax bilowdid dhamaanteenu marka hore xiisaha ayaana qaadaya waxaan samaysanaynaa jadwal waxaan leeyahay weekend soo socda waxaan samaysanayaa jadwalka ugu fiican waxaan soo kacayaa subaxii waxaan sameynayaa saacad aan ordo saacad aan wax akhriyo jadwal ayaa samaysanaysaa balse midaas waa bilaabistii waad bilowday soomaa kadib 2 maalin 3 maalin waan ka daalay waxaad ku soo noqonaysaa caadadaadii hore sidaadii hore aad ku soo noqonaysaa xiisihiina uu dhacayaa meesha ayuu ku dhamaanayaa haddaba wax aynu rabno waxay tahay in xiisahaasi uusan marnaba daciifin in xiisahaasi uusan marnaba damin in dabkaas ka shidan ee marka hore ka shidmaya si aad wax u bilowdid oo aad xiisahaas u qabtid inaad waxaasi ka dhabisid waayo waxa hubaala hadii aad wax bilaabaysid oo waxaasi aad samaysanaysid aad dejisanaysid qorshahaasi jadwalkaasi in waxaasi aad u baahan tahay Soomaa u baahan tahay waad ogtahay gudahaaga waad ogtahay inaad u baahan tahay balse arintu waxay tahay oo kaliya joogteen si wadid inaad wixii aad bilowday aad si wadid haddaba waxaan kula wadaagi doonaa 5 talaabo oo kuga caawin doonta in wax walbo aad bilowdid wax walbo aad xiisa u qabtid oo aad xiiseynaysid in xiisahaasi uusan marnaba ka damin balse uu mar walba shinaado in mar walba energy-gaasi iyo rabitaankaasi xoogan aad mar walba u haysid waxa aad doonaysid inaad ka dhabaysid haddaan kuma leeyahay waxay leedahay waayo iga daawar badan ee sheeg maxay yihiin talaabooyinkaasi cajiibka ah waruntaada waan ku maqlayaa haddaba talaabada koowaad waxay tahay samayso ahdaaf iyo ujeedooyin cad aad muhiim u tahay fir qofkeena haddii uu leeyahay ahdaaf cad oo clear ah oo aad ku kala baxsan yihiin oo aad kala qaybisid ahdaaftaas ujeedooyinkaasi kuwa dhaadheer kuwa fog oo aad u ogtahay si aad waxa aad ka rabtid tusaale ahaan iskuul ayaa rabtaa inaad dhigatid maxaa u dhiganaysaa iskuulkaas maxaad rabtaa inaad ka baratid waxaan rabaa inaad ka barto luqadda Englishka okay ilaa iyo in muddo ayaan rabaa inaan barto luqaddaasi waxaan rabaa 6 bilood ilaa iyo 1 sano inaan barto haddaba si aan uga dhabeeyo hadafkaasi 6 bilood ee aan ku baranayo luqaddaasi waxaan u baahanahay inaan la yimaado commitment inaan la yimaado ballanqaad dhab ah waxaan ballan ku qaadayaa waxaan nafsadeyda ballan kula qaadayaa in aan maalinkii ugu yaraan 1 hour hal saac
inaan maadadaasi akhriyo, inaan iskuulka si joogtaa u tago, in exercise-yada ay wixii la ii soo diro aan ka jawaabo oo aan ku xaliyo, in waqti gooniya aan u samaysto. waayo arintaasi waa wax aan rabo inaan ka meel gaaro oo aan ka dhabeeyo Soomaa. haddaba waa inaan anigana la yimaada waxyaabihii igu caawin lahaa inaan hadafkaasi ka dhabeeyo. haddaba hadafkan waa mid ku cad, waad og tahay hortaada ayuu yaalaa, luqadaan inaan barto, muddadaas aan rabaa inaan ku barto. haddaba muddadaas haddii aan rabo inaan ku barto waxaan la imaanayaa waxyaabihii la iga baahnaa oo ah inaan maalinkii ugu yaraan 1 hour inaan wax akhriyo, saacad inaan wax ku akhriyo, wax ku mudaakiriyo, in aan dhegeysto in badan casharadaasi luqadaasi ku saabsan inaan dhegeysto, in exercise-yadeeda aan xaliyo, in iskuulka aan casharka si joogtaa u tago. waxyaabaha kale oo laga yaabo inay iga celiyaan inaan iska daayo waxaas oo dhan oo marka hore aan meel iska saaro, inaysan jirin waxyaabo kale oo hadafkaas iga hor istaagi kara, iga bedeli kara, waxyaabo kale oo hadafkaas iga dhigi kara inaan ka cajiso, inaan ka xiisa dhaco. Soomaan waxaad uga xiisa dhacaysaa waxay tahay inay jiraan waxyaabo kale oo aadan weli albaabkooda iska xirin oo kugu soo furmaya. sadarteeda wixii marka ay kugu soo baxaan intaan ayaa kugu soo baxaysa waxyaabo kale ayaa jiray oo markii horeba aadan xalinin, oo markii horeba aadan iska oodin albaabkaas iska xirin. kadib waxaad arkaysaa waxay ahayd inaan waxaas sameeyo, wax kale ayaa igu soo baxay. kadibna meesha aad uga tegaysaa, meesha aad uga istaagaysaa. maxaa yeelay sababtoo markii horeba kuma aadan bilaabin hadafkaaga mid cad oo clear waxaad doonaysid kuma kala cadda. haddaba hadafkaaga ka dhig mid cad oo aan mugdi ku jirin. marka aad og tahay waxa aad doonaysid, ma jiraan wax ku joojin kara, wax ku celin kara. xiisahaagana mar walba wuxuu ahaanayaa mid kor ah, sababtoo waxaad og tahay waxa aad doonaysid, waxaadna iska xirtay wax walba oo kale oo ku mashquulin lahaa oo hadafkaasi kaa celin lahaa. hadda waxaan u imaanaynaa tallaabada labaad, waxayna tahay hawlahaaga u qaybo. maxaan ka wadaa? waxaan ka wadaa hawlahan aad sameynaysid waa inaad u qaybisid qaybo yaryar. firi, haddii aan idhaahdo caawa oo dhan ayaan soo jeedayaa, waxaan ku soo jeedayaa inaan maadadaan akhriyo, caawa oo dhan ayaan akhrinayaa oon dul fadhinayo. waxaa arkaysaa saacado kadib marka aad dhamaysid buuggii in waxa aad ka xifdisay ama aad ka guugaartay inay tahay un wax aad u yar, sababtoo ah waxa unbaa iska akrinaysay, maskaxaad unbaa daalinaysay, balse uma aadan akrinaynin si smart ah. Soomaa haddaba qaabka ugu wanaagsan ee hawl loo qaban karo si aadan uga caajisin waxay tahay inaad ka dhigtid qaybo yaryar. u qaybi hawsha mar walba qayb yaryar. fir, waxaan rabaa project ayaa la isoo diray, waxaan u arkayaa projectkan oo aad u weyn yahay. Soomaa haddaba haddii aan saan u arko marka hore oo aan arko projectkan inuu yahay mid aad u weyn, ma samayn karo. marka hore waxaa igu dhacaysa niyad jab. markaan arkay ayaa waxaan qaadaya niyad jab. balse sirtu waxay tahay in projectgan aan u qaybsho qaybo yar. waxaan leeyahay okay 2 hours, 2 saacadood ugu horeeya waxaan sameynayaa qaybtan iyo qaybtan. waa isla projectigi, waayo hadda lagama rabo waxaa laga rabaa projectgan 5 days gudahooda laga rabaa, 5 maalin gudahood inaad ku dhamaysid. okay, haddaba kor markaan saa u fiiriyo ila weyn yahay, balse marka aan qaybsado oo aan idhaahdo okay qaybtan maanta waxaan sameynayaa 2 saacadood ayaan siinayaa oo aan wax kale oo mashquulinaya aanan jirin, kaliya inaan 2 saacadood aan bilaabo aan sameeyo. waad bilowday. Soomaa waxaan ku yiri sirtu waxay tahay mar walba inaad bilowdid. haddii aad bilowdid waxaad arkaysaa marka dambe inaad la qabsatid oo caadi ay ku noqoto. haddaba qaybtan ayaad bilowday, waad sameynaysaa, kadibna haddana break ayaad qaadanaysaa, waad nasanaysaa, haddana qaybta kale ee ku xigta sidaas ayaad u sameynaysaa. marka aad sidaas sameysid oo hawl walba oo aad rabtid inaad ka soo baxdid aad u kala qaybisid qaybo yaryar, marna kama axjisaysid, marna ma dareemaysid inaad ka xiisa dhacday. ma jirto wax aadan ka soo bixi karin haddii aad u isticmaashid inaad qayb
وكلا قيبسين هذا niyad jabka waxa keenaya xiisa dhicidda waxa keenaya inaad wixii ka xiisa dhacday markiiba markuu rasaad xiisa u geys oo ulada marka ka waxa keenaya waxa arkaysaa inay wixii kugu bateen wixii tirada ka badan yihiin waxa isla oo waxaan ma dhameyn kara aniga balse marka aad qaybkan samaysid waqtigeeda siisid 2 saacadood aad siisid oo aad ka baxdid hadana break qaadatid hadana qaybta kale tartiib marka u gogoosatid arkaysaa inay dhamaatay hawsh inay dhamaatay marka masar joogay turjumaanayaan computerka ayaan ku turjumi jiray guriga anigoo joogo mar waxa la isoo diri jiray project aad u weyn oo la iga rabo oo kaliya in 7 days inaan ku soo dhameeyo waraaqo badan documentyo badan in la isoo diro lagu leeyahay waxa laga rabaa inaad 7 maalin inaad ku keentid oo ku soo turjuntid marka saa u fiiriyo waana xayaada xasle oo bas waa saa u sameyn karaa 7 maalin saa u sameyn karaa waxaan saa u badan balse aan soo qabanaya warqad ugu horeyso ma qabanaya waan bilaabaya inaan hawsh inaan bilaabo hadda waan u fadhiisanaya waan bilaabaya kadib saacad kadib 2 saac kadib waan nasanaya waxba iska cunaya break ayaan qaadanaya hadana waan ku noqonaya waxaan arkaya 5 maalin wixii loogu tagay 7 maalin 5 maalin ku dhameeyay balse marka hore maxaan dareemay niyad jab laakiin maxaan uga raayay waxay tahay inaan bilaabay oona u kala qaatay hawshaasi qayb inaan u qaatay inaan qayb aan bilaabay qaybta markaan dhameeyay hadana qaybta kale marka sidaas sameeysid marna kama xiisa dhacaysid wax walbood bilowdina waa dhameynaysaa aamin talaabada saddexaad waxay tahay abaalmari nafsadaada fiiri waxaan ku yiri hawsha ka dhig qaybo yar yar qayb walbood dhameysid waa in abaalmarisaa nafsadaada maxaad ku abaalmarinaysaa waxaad ku abaalmarinaysaa break fiican aad qaadatid 20 daqiiqo 30 daqiiqo qaadato inaad qaadatid oo ku raaxaysid breakaas oo aad sameeysid waxyaabaha jeceshahay breakan uga faa'iideyso inaad nafsadaada aad ugu raaxaysid oo aad ku sameeysid waxyaabaha jeceshahay firi hawshan marka aad sameynaysid projectiga ama mashruuca ama wax akhriskan waxaad dareemaysaa cadaadis Soomaa nafsadaada ma rabto waxay jeceshahay inay Facebook gasho inay YouTube ka daawato inay game ciyaarto Soomaa hadda nafsadaada ayaa khasabtay waxaad ku khasabtay inay hawshan sameyso waa sameys hadda u noqon markii wixii kala jecelayd abaalmarinta hadda aad ku abaalmarinayso nafsadaada waxay tahay inaad sameysid waxyaabaha aad jecelayd hana qoto inaad YouTube gashid inaad wax akhrisatid inaad wax kala sameysid inaad saaxiibkaaga la hadashid inaad game ka ciyaartid waxyaabo kale oo aad nafsadaada hadda aad break u qaadanaysid samee marka aad sidaas sameysid oo aad mar walba oo wax sameysid oo aad injaaz sameysid oo aad wax ka soo baxdid aad nafsadaada abaal marisid waxaad ku soo noqonaysaa hawshii adigoo faraxsan adigoo hammi iyo u haya rabitaan kale maxaa yeelay waa soo nafistay waa soo raaxaysatay Soomaa nafsadaada waa abaal marisay waxaad dareentay sidoo kale injaaz waxaad dareentay inaad wax sameysay fiiri bani aadamku ma jiraan wax uu ka jecel yahay waxa la yiraahdo injaaz macnaheedu waxay tahay inaad wax ka dhabaysid wax gaartid qofka bani aadamka inuu wax gaaro oo wax ka dhabeeyo wax uu jecel yahay sadarteed waa farxaysaa aad u farxaysaa marka hadaf aad lahayd aad ka dhabaysid marka qorshe iyo mashruuc kale ku degsanaa oo rabtid inaad dhamaysid aad ku guuleysatid oo aad meel ka gaartid waad farxaysaa hadaba ha iloobin meelahan aad iyo muhiim u tahay inaad nafsadaada ku abaal marisid marka aad waxaan oo kale aad gaartid guul aad ka gaartid oo wax sameysid oo nafsadaada aad ka adkaatay inaad waxaad ku qasabtid oo aad sameyso abaal mari kafee qaado ku raaxayso kafeegaas u dabaaldeg guulaha yaryar hayloobin fiiri qofkeena wuxuu raadinay oo kaliya guulaha waaweyn oo inaan shahaadadaasi aan qaato inaan iskuulkaasi aan dhameeyo balse in buugan aan ka akhriyo 5 page mastone page waa injaaz waa hawl aad u weyn oo aan dhameeyay Soomaa waxa laga yaabaa qof kale inuu sidaas sameyn karin dad badan inaysan akhrin karin inay hatta hal page inaysan awoodaan inay fadhiyaan hal page oo ay nafsadooda ku controlaan inay buugaasi ay ku akhriyaan waayo waxay rabaan inay Facebook u boodaan inay halka u boodaan inay qof la sheekaystaan inay telefoonka ku mashquulaan Soomaa balse adiga waa sameysay adiga waad ka dhameysay hadaba hayasin
حداليرسانين قولها يرركا هذه مهم تاي ودبالدك قولها يرركا نفسد هذا أتكربيسي أتقارتت تلابدا أفراد waxay tahay kula hadal nafsadaada hadalo wanaagsan maxaa ula jeedaa qofkeena ma jirto wax uga xun inuu nafsadiisa liido hadda waxay leedahay ayub ma waxaa jira dad nafsadooda liidayo way jiraan firi dad waxaa jira nafsadooda cadowga kale uga daran Allah dad waxaa jira nafsadooda cadowga kuwaad u ah qofkan aan ku sheegay waa qofka nafsadiisa kula hadla hadalo aan fiicnayn oo miyaan kula hadlay nafsadiisa hadalo aan fiicnayn tusaale qof waxaad ku leedahay waxaa samaysay waxaad u fiican alf mabruuk wax fiican samaysay kule may waxaa samay ma jiraan waxaa ahay ma jiraan may maxaa ugu diidaysaa nafsadaada guusha maxaad ugu diidaysaa nafsadaada maanta haddii aad mudatay maxaad ugu diidaysaa may aniga ku fiican miya aniga weligay lagama yaabo inaan guulaysto aniga weligay ma laga yaabo inaan saaxiibo fiican samaysto aniga weligay lagama yaabo inaan sidaas noqdo aniga weligay lagama yaabo inaan ani waxaan ahay qof xun ani waxaan ahay qof dabeecadaas leh duula ma aragtay qof kule aniga aslan aniga waxaan leeyahay dabeecad aad u xun fir hadalada aynu kula hadalno nafsadeena waxay leeyihiin saameyn aad u weyn haddii aad nafsadaada kula hadasho hadalo wanaagsan howshan waan ka soo bixi karaa waa guulaysan karaa waan ka dhabayn karaa waan gaari karaa qof wanaagsan ayaan ahay qof dabeecad wanaagsan ayaan ahay ma inaad iska leedahay haddii aad dabeecad xun leedahay may waa inaad iska saxdaa balse waxaan ka wadaa in haddiiba aad leedahay qof dabeecad wanaagsan ma jiro qof isla wada xun haddaba waxa wanaagsan aad leedahay ku faan waxa wanaagsan aad leedahay waa inaad ku faantaa oo aad ogaataa inaad leedahay casharkaasi waan ka soo bixi karaa iskuulkaasi waan dhamayn karaa qof kaleba haddii uu sameeyey maxaan uu samayn waaya firi bani aadamka oo dhan waa isku mid wixii qof kale uu sameeyo oo ku guulaysto adigana waad ku guulaysan kartaa hadaba inaad mid aaminsan tahay kula hadal nafsadaada in aadan ahayn qof caajislo ani waxaan ahay qof caajislo haddii mar walba aad leedahay waxaan ahay qof caajislo qof waxaan aniga saas uma ahaanaysa waayo caqligeena hoose ma kala saarayo waxaan inay khalad tahay inay sax tahay ma kala saarayo wax walba aad u sheegtid uu qaadanaya wuxuu ku leeyahay nacam labayk waan ku yeelay warkaaga waa aqbalay ayuu ku leeyahay haddaba aad uga taxadir hadalada aad kula hadlaysa nafsadaada kula hadal nafsadaada hadalo dhiirigelina hadalo wanaagsan inaad tahay qof maskaxdiisu ay fiican tahay qof wuxuu ku leeyahay waxaan ay damiin ana maskaxeedu waxa ma qabanayso weliga wax ma qabanaysid weliga ma qof sidaas kule aniga horta xisaab ma laga yaabo inaan xisaab aniga mar laga yaabo inaan barto juqraafi may ani juqraafi ma laga yaabo weliga inaan barto waan ku xumahay ma yaa ku yiri hebel iyo heblaayba way bartaan maxaa u baran weys maskax fiican yihiin may ilaahay subhanahu wa ta'ala isku si umbu ida abuuray labadiina haddaba kaliya waxay tahay adiga inaad u jeedin awoodda Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay gudaha ku jirta midaas oo inaad wax walba u baahan tahay aad ka dhabayn kartid wixii qof kale uu sameeyay samayn kartid dhiirigelin nafsadaada kula hadalo wanaagsan hadalo dhiirigelina mihi maanta laga bilaabo qof caajiso haddii aan mar walba mihi qof maanta laga bilaabo qof caajislo oo na ficil iyo action la yimaado ma aha inaan iska hadlo kaliya balse hawshan aan sameynayo oo aan howl sameynayo wax tar la imaanayo ogow waxaad noqonaysaa sidaas waxaad noqonaysaa qof wax ka dhabeeya qof wixii u bilaaba u dhabeeya qof waxaad noqonaysaa wax tar leh waa hubaal midaas adiga waxaad tahay uun sida aad u aragtid inaad tahay talaabada shanaad hala tartamin qof kale niyad jabka ugu weyn ee qofkana la kulmo xiisadicida caajiska waxay noqotaa waxa rabti ugu yar waxay tahay in uu la tartamo qof kale
hebel ayaan fiirinayaa mar walba hebel saas u sameeyay aniga way dhamaatay aniga sidaas ma noqon karo hebel oo kale ma noqon karo aniga heblaayo oo kale ma noqon karo heblaayo waxaas sameysay aniga waxaas ma sameyn karo heblaayo waa heblaayo adigana waa waxa tahay adiga hebelna waa hebel adna waxa tahay adiga ayaa tahay qofna qof uma eka adiga waxa tahay adiga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siiyay wax walba u baahantay si qofkaas kale uu siiyay ayuu ku siiyay adigana Allah waa caadil hadaba qofka kaliya loo baahan yahay in muuhibadaasi waxyaabahaasi ku duugan uu soo saaro banaanka u soo saaro oo ka faa'iideysto waa adiga weligaaga qof kale hala tartamin leena qofkaas kale adiga ma oga duruuftiisa iyo xaaladiisa adiga xaaladaada iyo qofkaas xaaladiisu way kala duwan yihiin isku mid ma tihiin saadarteed ha ku qiyaasin qofkaas kale duruuftiisa iyo duruuftaada adiga qof kale la mid ma tihid adiga ayaa tahay hadaba weligaaga nafsadaada qof kale hala barbardhigin hala tartamin qof kale haddii aan ku siinayo hal nasteexo oo aad ku seexanaysid waxay tahay haddii aad la tartamaysid qofkaasi ha noqdo adiga nafsadaada midaas ayaan sameeyay aniga weligayga ma fiiriyo dadka kale iyo heblaayo iyo hebel la tartan mise hebel ka badi hebel ka fiicno may waxaan sameeyo kaliya ayuubkii shalay inuu midka maanta ka fiicnaado qofkaan la tartamayo ayuub isla aniga ayaa tartamaya inaan maalin kasta aan noqdo mid ka fiican kii shalay aan ahaa tartanka ugu wanaagsan waa midka aad nafsadaada la gashid markaas waxaad ka dhabeynaysaa wax walba aad doonaysid waxaadna cagta saartay wadadaadii guusha hadaba intaan waa 5 tallaabo oo aan aaminsanahay kuna kalsoonahay haddii nafsadaada ku dabaqtid inaad noqon doontid qof wax soo saar leh qof wax tar leh qof wixii uu bilaabo dhameynaya oo aan dhexda uga tagaynin oo aan ka caajisaynin waxaadna heshay daawada xiisaynta aan joogtada lahayn maanta laga bilaabo waxaad tahay qof wixii uu xiiseeya joogteeya aad ayaad mahadsan tahay taniyo inta aynu goor kaga kulmi doono muuqaal kale oo xiiso leh waxaan ku leeyahay mar walba gadaashaada fiirinin hortaada fiiri mar walbana noqo qof ka fiican kii shalay aad ayaad mahadsan tahay ثابتا كن راسخا مثل الجبال